kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali News Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn farmaajo iyo Fahad iyo Yaasiin Fare ayaa bilaabay inay faafiyaan sirtii dawladda ay hogaaminayeen sababta ka dambeysay inay faafiyaan sirta dawladda maxay ka dhigan tahay inay saacadan bilaabaan inay faafiyaan sirtii dawladda ay hogaaminayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaaday tilaabadii ugu horeysay uga jawaabayo falka ay ku kaceen Fahad iyo farmaajo iyo sidoo kale Yaasiin Fare maxuu noqon doonaa khilaafka ka dhaxeeya damul jadiid iyo sidoo kale nabad iyo nolol ayaa qorshe halis ah ka bilowday dalka Turkiga waxa ay doonayaan inay burburto dawladnimada Soomaaliya xoga ka qarsoon ayaan daawada kuula wadaagi doonaa muuqaalkan balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka la gareyso sidoo kale aad la gareyso subscribe-na saarato si ay ku soo gaaraan wararkeena maasanid waa hagaag aan ku bilaabo madaxweyne hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labadiisii taliye ee hay'adaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Yaasiin Fare ayaa bilaabay faafinta dukumiintiyo sirdoon ah iyo kuwa maamul oo gaaray xafiisyadoodii xilliga ay xilka hayeen sida aan ka ogaanay xubno ka tirsan kooxda nabad iyo nolol oo ku sugan wadanka Turkiga Farmaajo iyo Fahad iyo kooxdii ayaa qaaday go'aan ah inay dagaal siyaasadeed u isticmaalaan dukumiintiyadii iyo macluumaadkii ay diiwaan geliyeen xilligii ay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay hayeen Fahad iyo sidoo kale Yaasiin Fare farmaajo oo dhawaan gaaray dalka Turkiga ayaa kulan dhiirigelina isugu yeeray taageerayaashiisa kuwaas oo doorashadii kadib ku kala firxaday Muqdisho haddana ku sugan wadanka Turkiga halka qaar kalena ay kulanka uga qaybgalayeen qadka telefoonka waxaana kula dardaarmay inay xoojiyaan halganka ay ku jiraan wixii macluumaad ahna oo la wadaagi doono Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qaar kamid ah dadka taageera nidaamkii hore ee farmaajo iyo Fahad ayaa bilaabay inay baahiyaan muuqaalka eedeysan ka tirsan ururka Al-Shabaab kaas oo ku jira gacanta hay'adda amniga balse aysan dawladdu wali soo bandhigin xogtiisa taas ayaana horudhac u ah qorshaha ay doonayaan inay ku howlgalaan kooxdii xilka ka degtay xog aan ka helnay ilo xilkaasa oo kamid ahaa nidaamkii farmaajo oo hogaaminaya ayaan ka ogaanay in muuqaalka maanta la faafiyay kaliya ay ogaayeen farmaajo Fahad iyo Yaasiin Fare iyadoo oo la duubay xilligii Yaasiin Fare oo ahaa kusimaha hay'adda sirdoonka qaranka xeeldeerayaasha siyaasadda ayaa ka niyad jabsan dhaqanka cusub ee kooxdii nabad iyo nolol ay ku kaceen waxayna tilmaameen inay abuureen qalqal siyaasadeed balse mar dambe aysan ku soo laaban doonin xukunka maadaama ay ku kaceen fal guracan kaas oo keeni kara kacdoon shacab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo durba ka fal celiyay ayaa sheegay inaysan u dul qaadan doonin nidaamka ay ku kaceen kooxdii hore ee nabad iyo nolol waxa uuna isla markiiba xilka ka qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed waxa uuna xilkaas u magacaabay ninkii hore u heejiray oo lagu magacaabo Liibaan talaabada xasan sheekh maxamuud qaaday ayaa ah jawaabtii ay sugayeen kooxda nabad iyo nolol waxayna maanta waayeen garab weyn oo ka tirsanaa kooxda nabad iyo nolol oo ahaa Baashi Yuusuf waxa farmaajo u magacaabay maxkamadda sare Baashi Yuusuf Axmed 2018 ilaa waqtigan uu hayay balse maanta xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaaday xilkaasi waxayna taasi jawaab cad u tahay falkii ay ku kaceen kooxda nabad iyo nolol dhanka kale kooxda nabad iyo nolol ayaa u kala jabay laba qayb oo kala ah in koox kamid ah ay u goosteen kooxda damul jadiid waxaana kooxdaasi kamid ah Cali Yare Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa maanta soo muuqday asagoona xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo lagu horumarinayo gobolka Banaadir balse dadka odorasa arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya inay taasi tahay kufri siyaasadeed oo Cali Yare ku kacay madaxweyne farmaajo oo si aad ugu xanaaqay falka Cali Yare oo ku kacay ayaa asaguna bilaabay inuu baahiyo muuqaaladii sirta ahaa ee laga duubay kooxda Al-Shabaab waxaana muuqaaladan ay muujinayaan sidii loo dilay xildhibaan Aamina oo lagu dilay magaalada Beledweyne xilli ay doonaysay in loo doorto kursiga xildhibaannimo balse Aamina ayaa nafteeda ku weysay qarax lala beegsaday kaas oo ka dhacay xirada la magalaay ee magaalada Beledweyne dhimashada Aamina oo qalbiga xasan sheekh maxamuud iyo UPD si aad u taabatay ayaa ninkii dilay waxa uu ka soo muuqday baraha bulshada waxaana hay'adda sirdoonka qaranka
ay sheegtay inuu ninkaani ahaa ninkii soo maleegay qaraxii lagu dilay xildhibaan Aamina balse kooxdii Farmaajo oo qabatay ninkan muuqaal ka duubtay ayaa maanta ugu dambeyn baahisay iyadoo ku doonaysa inay ku carqaladeyso dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kooxda nabad iyo nolol oo aan ka jawaabin dilkii loo geystay xildhibaan Aamina ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay muuqaalkaas iyadoon soo bandhigin xilligii ay talada hayeen kooxda nabad iyo nolol taas oo dadka arrimaha siyaasadda odorosa ay ku sheegayaan inay tahay gef siyaasadeed dadka qaar ayaa qabay in loo baahnaa in la soo bandhigo xogtan xilligii Farmaajo Fahad iyo Yaasiin Farey ay xukunka joogeen taas oo ahaa lahayd haddii ay soo bandhigaan malaf weyn oo ay ku faani karaan kooxda nabad iyo nolol sidoo kalena u noqon kartay ololo weyn oo uga qayb galaan siyaasadda Soomaaliya balse kooxda nabad iyo nolol oo laga guuleystay 15 May ayna ka guuleystay kooxda Damul Jadiid oo hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku kala firxaday dalka Turkiga madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray dalka Turkiga ayaana isugu yeeray si aysan u kala dhumin ayna u bilaabaan halgankooda maadaama doorashada soo socota ay rabaan inay ku guuleystaan waxa ayna bilaabeen durba inay faafiyaan sirta dawladda dadka qaar ayaa qaba inaysan ololo siyaasadeed noqon karin in la faafiyo sirta dawladda taas oo ah xog muhiim ah dawladda Mareykanka ayaa laga sugayaa inay ka jawaabto arrinkan waxaana la filayaa inay kooxda nabad iyo nolol weliba hogaamiyayaashooda sida Fahad Farmaajo ay xabsiga dhigaan maadaama ay ku kaceen qalqal siyaasadeed iyo sidoo kale arrimo mamnuuca in la faafiyo sida sirta dawladda waxaana xeerarka caalamiga ay qorayaan inaan la faafi karin sirta dawladda balse kooxda nabad iyo nolol ayaa u muuqata kuwa khilaafaya xeerka caalamiga ee ka degsan in la faafiyo sirta dawladda maxaa laga filan karaa haddii kooxda nabad iyo nolol ay ku sii socdaan sidaan ayna faafiyaan sirta dawladda halkeesa ku dambayn doonta dawladda Soomaaliya mar haddii ay sirteeda banaanka imaado warbaahintana ay hesho sidoo kale ay ka war heraan kooxda Al-Shabaab dadweynahana ay gaarto maxay ku dambayn doontaa barnaamijyadeena dambe ayaan daawadayaal idinku wadaagi doonaa halkaas ayaan si ku soo afmeerayaa barnaamij wareedkan waxaan si tixgelin leh kaaga codsanayaa inaad leegareyso share gareyso subscribe na saarto si ay kuu soo gaaraan waxaan kaaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah